kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa beenisay in dagaalyahano u dirtay dalka Ukraine si ay u taageeraan ciidamada Ruushka. Xogayaha guud ee Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa ku yiri khudbad uu telefishinka ka jeediyay galinkii dambe ee Jimcihii. Waxaan si cad u diidayaa wax kasta oo sheegashooyinkan ah. Sheekooyinkani waa been abuur aan run ahayn. Waxa uu intaa ku daray ma jiro qof ka socda Xisbullah ama dagaalyahan ama qabiir oo tagay goobta dagaalka. Kiev ayaa hore u sheegtay in Moscow ay qoratay ilaa 1000 dagaalyahan oo ka kala socda Syria iyo Xisbullah si ay ugu dagaalamaan Ruushka ayaa u adeegsaday gantaaladiisa cusub ee Kinzhal hypersonic markii ugu horeysay gudaha Ukraine Jimcihii si uu u burburiyo goob lagu kaydiyo hubka oo ku taal galbeedka dalka. Wasaaradda difaaca ayaa sheegtay Moscow weligeed ma qiran in ay u isticmaashay hubka saxda ee dagaalka. Wakaaladda wararka ee dowladda ee RIA Novosti ayaa sheegtay inay ahayd markii ugu horeysay ee la isticmaalo hubka hypersonic Kinzhal intii lagu jiray iska horimaadka Ukraine. Nidaamka gantaalka blastikada ee Kinzhal ayaa burburiya baqaar weyn oo dhulka hoostiisa ah oo ay ku jiraan gantaale iyo rasaas ee tuulada Deletin ee gobolka Ivano-Frankivsk. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa tiri madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo saaray khudbad kale oo muuqaal ah oo u jeedinayo dadka reer Ukraine. Waxa uu ku boorinayaa Moscow inay u fadhiisato wada hadal. Waxaan doonayaa in qof walba maqlo hadda, gaar ahaan Moscow. Waxa la gaaray waqtigii kulanka, waa waqtigii la wada hadli lahaa, ayuu ku yiri khudbadii uu sii daayay saacadihii hore ee Sabtidii. Waxa la gaaray waqtigii dib loo soo celin lahaa sharafta dhuleed iyo cadaaladda Ukraine. Haddii kale khasaaraha Ruushka wuxuu noqon doonaa mid qaata muddo dheer kasoo kabsashadiisa. Zelensky ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidamada Ruushka inay si ulakac ah u xanibaan sahayda bini'aadanimo ee la gaarsiin lahaa magaalooyinka la weeraray. Tani waa xeelad ulakac ah, tani waa dambi dagaal, wayna ka jawaabi doonaan ayuu yiri. Biden ayaa ku dhawaad 2 saacadood oo telefoon ah la yeeshay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo si uu ugala hadlo duulaanka Ruushka ee Ukraine. Biden iyo Xi labaduba waxay ku heshiiyeen baahida loo qabay in kor loo qaado nabadda lagana caawiyo masiibada bini'aadanimo ee abuuray duulaanka. Balse waxay si weyn isugu khilaafeen cidda mas'uulka ka ah dhibaatada ka taagan Ukraine, iyadoo hogaamiyaha Shiinaha uu diiday inuu Ruushka si gaar ah loogu eedeeyo duulaanka aan loo meeldayn. Beddelkeeda akhrinta rasmiga ah ee Beijing waxay si cad u sheegtay in mowqifka Xi uu ahaa in Mareykanka iyo Yurub ay ka cadeysiyaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu weeraro Ukraine isagoo NATO ku fidiyay bariga Yurub. Inta lagu guda jiray wada hadalka telefoon, Biden wuxuu qeexay saameynta iyo cawaaqib xumada laga dhaxli doono haddii Shiinuhu uu taageero Ruushka, ayuu yiri aqalka cad.